konton sano ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen afgembi iyagoo soo afjaray 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dawlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. haddaba intaynaan u gudagelin sidii xukunku uu gacanta ugu galay militariga bal aynu eegno dawladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dawladnimada lagu hantay. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macallin ka yahay jaamacadda Minnesota waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika. walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dawladnimadu horta dad dhulkii Soomaalidu deganaan jiray waa la kala googooyay meel walba isticmaar baa qabsaday dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addooma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimadda ama xundurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan gaar ahaan wixii ka dambeeyay 45-kii dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dawladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka kooxow in la isku koono oo walaaloobaan oo inay u kala yaxan qaraabadoodii iyo kuwa kale dadkii masalayeen amuurtaasi ama Cabdullaahi Ciise ha ahaado ama Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ka horreeyay ahaado ama Sheekh Bashiir oo reer Burco ha ahaado ama kuwa ha ahaadaane waxay isku dayeen mabaadi'da caynkaas inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobolada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal. ma shaqaysay dawladdii hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada nidaamkii socodsiinta maamulka siduu waddanka uga hirgalay dawladdii aadan cadde. waxa weeye markii la isku yimid walaal aadan iyo dadkii u dhadhawaay la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen inkastoo qaybta Talyaaniga uu haystay koonfurta ah 10 sannadood maahe 5 ilaa 6 sannadood tababar ay ku soo jireen gaar ahaan 56 markii Cabdullaahi Ciise loo qabtay inuu ra'iisul wasaaraha daakhiliga ah noqdo waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinmaan wixii waxqabada ay dawladdu leedahay iskuullada loo tartamo askarta loo tartamo saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegaya Talyaaniga ka soo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta Soomaali soorada Talyaaniga taageersan oo qabyaaladu ku milan tahay iyo Soomaali gobonimada taageersan oo qabyaaladu ku milnayn oo Israel ka mid ah. waqooyina sidaas leeg bahayd inkastoo waxoogaa ka duunayd oon aad loo kala jabin waxaa jirtay مثلا maxamuud looran jiray Wardoox oo magaalada Burco ka dadkii ka aasaasay xisbigii SNL looran jiray inuu ahaa dadkii u hiloobayay ee taageerayay in Talyaaniga laga kiciyo koonfurta. halkaa markii la isku yimiday ee dawladnimadii bilaabantay waxa la bilaabay meelaha ugu horreeyay ee la oranayo qof kale oo 18 jir baa cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashada timaado rag iyo dumarba. waxa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oo waxaasi ka dhaceen marka sinaan ayaa halkaa ka bilowday. waxbarashadan waxaan ahaa dadkii markaa dawladnimadu dhacas soo timiday soo bilaabaya tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan. tartan baa imtixaanada la geliyo kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray ama baadiye ka kaalay daabiyad ka kaalay ama xawar ka kaalay qof ka qaadiyo mu jirin. marka waxa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dawladda inay meesha xaq ka jiro. midalan waxa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyay in askartii inqilaabka sameeyay inta xamar la soo taagay maxkamad la taagay maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay sida ninka yaqaanka dawladdu u doodiyay waa la sii deynaya. Cabdirashiid Cali Sharmaarka Allah yarxamo ra'iisul wasaaraha Aadan Cabdulle waxay sameyn karayeen inay raacsan qaataan maxkamadda sare geeyaan. waxay dhahan laba gobol baan nahay oo isku yimid oo Soomaaliya waan mideynaa hal loo dambi dhaafo kuwan. marka waxaad arkaysaa dareen caynkaas waxa kala jiray walaal markii la abuuray diyaaradihii Somali Airlines in imtixaan Ingiriis lagu qaadayo oo wiiqaya dhinac markaad ka eegto dadka koonfurta Talyaaniga wax ku soo bartay inay ogolaadeen Aadan Cabdulle iyo Cabdirasaaq iyo dadkii madaxda oo dabadeedna tartan caadi la galay. imtixaanadu sidaa bay ahaan jireen laakiinse markii 67kii la dhaafay ayay bilaabmaysaa musuqmaasuqa wixii la oran jiray xoogiis waa. doorashooyinkii 1967 iyo 1969 ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakameyn kari waayeen musuqmaasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. musuqmaasuqa baahay waxa uu ka careysiiyay dadweynaha oo doonaya isbedel.
maxamed cabdi yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladdii hore waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay Soomaaliya xorriyadda qaadanaysay dawladdii lixdankii waxay labadii gobol oo midna Talyaanigu haysan jiray midna Ingiriis oo midoobay oo xorriyaddii keenay marka waxay keeneen midnimo iyo gobonnimo mabda fiicanna way keeneen laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 9 sano oo ka dambeeyay midnimada iyo gobonnimada qaladaad fara badan ciidan ka badan ayaa dalka ka dhacay waxay qabteen waajibkii ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay dagaal ee baaqi doorashadii 69 oo shubasho ku dhacday oo dadku doorteen inta badan aan soo noqonin meel balleegada ku soo shubatay 123 xildhibaan oo baarlamaanka soo galana Cabditax Xasan Allah naxariistay oo ahaa dadkaan xisbigii dadka ay bixiyeen laakiin sida moraati baaqi ahaa shirkiis ayaa ku soo galay 122 kale kulli meel ay hayeen inta badan lagu soo furto shacbigu soo dooran arrintaasna marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badan ee dadka ku sii dejisay dhibaato badanna way keentay ugu dambeyntiina waxay galaafay madaxweynihii Allah naxariisto Cabdirasaaq Ali Shumate oo la dilay 15 Oktoobar 1969 inkastoo afgembigu uu dhacay 21 Oktoobar 1969 haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitanayay Professor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horeeya si dhowna waxa uu la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa marna intaad la sheekaysanaysay maskaxdiisa ma weydiisay sababtii afgembiga waddanka uga sameeyay marna ma ku sharaxay laba waxba afkiisan ka hayaa moogtahay Allah u naxariistay waa midoo horta 67 yaan filayaa iyo 66 waxay ahayd maxubo yaa wuxuu tagay Itaaliya marka waxa waxbarasho u jooga Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre Cabdiraxmaan wuxuu ku yiri sidoo noo sheegay madaxweynuhu runtii aan afkiisa uga hayo wuxuu yiri waxaan ku iri warnayahow isdiyaari waxa imaanaysa dawlad ummadda u shaqaysa kuwaanu meesha wax ka qaadayna waa mid horta tan labaad waxay ahayd hadal uu habeen igu yiri wuxuu yiri baahi cusub la siyaad oo markaasi duutaasi ah qareenna ah yaan wuxuu yiri waxaan iska soo raacnay Baydhabo oo diyaarad aan isla soo raacnay waxaan ku yiri musuqmaasuqan waa dhamaanaya nin dhalinyaro ah tahay oo dhalinyaro ah oo aqoon leh marka waxaan ka codsanayaa inaadan ku biirin musuqmaasuqa hadda socda marka labadaasaad waxaad ka arkaysaa in uu runtii isu diyaarinayay ilaa iyo xadba waa sida anigu islaayahay moogtahay oo Cabdullaahina wali waa nool yahan filayaa maxaa yeelay markii madaxweynuhu noo sheegay aniga iyo guddiga ayaan waxaan tagnay beledweyne oo markaas Cabdullaahi yaa joogay isagoo wasiir ah dawladda Maxamed Siyaad ka isla su'aashaasaan weydiiyay Cabdullaahi wuxuu yiri wallahi waa runtii diyaaradan isla soo raacnay duutaati aan ahaa saasuu ugu yiri subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyay waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda waxay isla maalintaasi sharaxeen siyaasadooda arrimaha gudaha iyo tan dibadda galinkii dambe ee maalintaasi waxaa lagu dhawaaqay samaynta golihii sare ee kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood golahaasina waxaa magacooda ku hadlay taliyihii ciidamada Generaal Maxamed Siyaad Barre militarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay'ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaagga cilmiga ku dhisan Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah mabda'a hanti wadaagga kacaanka ku dhisan miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado uun bay ahayd markuu kacaanku dhashay dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii caddeed golihii sare kacaanku soo saareen 21 waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay warqada markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray yani first charterka waxa ay lahaayeen of the revolution warqadaas waxaad arkaysaa in ila iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana haddana
in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in markasta la kala saaro wixii kaftan ah oo qofka kugu yeeray madaxweynahoo kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasadii saamaynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meeshaa wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada villa Soomaaliya yaa isagoo qoslaya iyo wuxuu yiri company u dhihi jiray, wuxuu yiri dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. anigu ma hayo, anigu waxaan ahay wixii ummadan lagu wanaajin karo anna kursiga ugu hayn karo. marka waxaan is leeyahay jawaabtaada halkaas ka soo baxaysa. laakiin hadda waa qoslaayo ogow, isagoo qoslaayo moogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii masax lehna waa gartay. marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu usan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay? mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kastoo dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa real qof complexa moogtahay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiiyo moogtahay. bishii November 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978 markaas oo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay samayso. waxa weeye horta wax kasta binaadan qalad waa samaynaya, laakiin qaladka ugu weyn waxuu dhacay dagaalkii sida maqsiid la galay buu dhacay. dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo ka mid ah shanta Soomaaliyeed hal xornimo beesha ay ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bislayn markaa iyada. sababtuna waxa weeye annaga keligayo ma aynan meel garin karin arrinta iyada ah. for example waxaan kuu sheegayaa 1976 intaan dagaalka lagu dhawaaqin Maxamed Siyaad rag buu u soo yeeray badan oo rag baan isugu jira warqadaha lagu daafay xamar leeyahay Maxamed Siyaad Barre uu ka dhaqaayay inuu dadka xoreeyo ma rabo. noo yeeray baan ka midaa jawhar markaan jooga la iga yeeray oo madax ka ahaa. kolkaas ayaa la yiri maxay yiri waxaas la yeelay ka hadlayo marka arrintaas kala qabsay waa la hadlay dadka intiisa badan oo waxay yiraahdeen dagaalka la galo Soomaaliya soo dadka dhan waa ku tirsanaa dalka la xaqay maanta Itoobiya ciidankeena kaana ka qabta laakiin waxa lagu kala jiray Itoobiya ay ku tirsan tahay annagu sidoo ku tirsanaa warsaambul dowladda doonka waxa taageeray waddanka Itoobiya dalka Itoobiya dowladda waxa soo jiray laakiin dalka Itoobiya waxa ku shaqeynay teoriyadii leelin ama diin oo saddexda quwadood oo waqtiga xaadirka jooga oo xulufada oo ka soo horjeeda imperialist kow dalka wadaaga labo shaqaale weynaha adduunka saddex dhaqdhaqaaqyo dowladda annagu marka tadbiir kale diyaaraadka iyo madaafiicda iyo waxaan wadano iyo hubka iyo waxaan wadano waxaan ku tiirsanay Soomaaliya waxay Itoobiya ka tirsantahay wadaaga inay ka dhigto marka Itoobiya marka wax ku tiirsantahay lambar 1 ku jiro annaguna lambar 3 ku jiro oo dowladda sida daradeed markaan dagaalka galay oo ka dibnayay in joojiyo annaga hubkii laga joojiyay ayadana waa hubeeyay wasbaad iyo naasana ibaalkiisa marka la yiraahdo kuba iyo kuwa waafeen ilaa buu keenay ciidamadii waa la soo jibshay adduunka reer galbeedka oo dowladda markaa yeeran shufteen loo yaqaaneen Itoobiya lagala jiray dadaan oo dhan hubeeyay waxna qabanay dagaalkii ciidanka soo jibay dalka soo galay dadkii ku soo laabtay ciidamadii waa kala qabadeen shabaabada qabaayda la aasaaday marka shabaabada qabaayda la aasaaday kulli Itoobiya ahayd oo la soo socday la soo duulay qarashii wax ka dhigay oo iyaga calaamad ay horseedka ahayd marka sidaas ayaa ka weyn ku dhacay dagaalka la galay dagaal xaq waa laakiin lagu degdegay oo laga fiirsan ma garan wadada halkaas ku
Professor Cali Jimcaale waxa uu isbarbardhigga suugaanta ka dhigaa kulliyadda Queen's College ee jaamacadda City University ee magaalada New York. waxay ugu horreyn isbarteen Maxamed Siyaad Barre 1973 xilli uu ku jiray dugsiga Xalane. 6 sano kadibna waxa uu si rasmi ah u bilaabay inuu la shaqeeyo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. xilligaasi waxaa durba waddanka ka jiray jabhado hubaysan oo mucaarad ah, kuwaasi oo saldhigyo ku lahaa dalka Itoobiya. marna ma kuu sheegay ma kuu qirtay qaladaadka uu sameeyey iyo kuwii ugu waaweynaa kuwii ahayd? runtii khaldaad uu sheegay oo uu si cad u sheegay runtii horta ma jirin, laakiin waxyaabaha uu ka hadli jiraa waxay ahayd mar kasta masalan wuxuu ku leeyahay war isagoo wasiirada iyo ka hadlaya maogtahay wuxuu ku leeyahay war kuwii aan magacawnay laftoodii yaan xilkoodii ka soo baxayn maogtahay. misaal wuxuu habeen yaa waxaan xasuustaa wuxuu yiri wuxuu ka soo noqday baaritaan uu ku tagay dekada xamar berigaasi. marka magaalada waxaa jira beriga sokorwa, soomaalidana waa tan sokorta aad u qaadata maogtahay isticmaasha. meeshuu ka soo noqday wuxuu soo arkay sokor oo roob intuu ku da'ay halkaa ku khasaartay maogta lagu khasaaray oo eber noqotay. marka wuxuu yiri war bal fiiri magaaladiina waa sokor la'aan, halkaasuna saasii sokorti ay ugu baaba'day. marka dadkii aan xilka u dhiibay yaa ka mas'uulahu yiri maogtahay, laakiin isagu ma dhihin anaa ka mas'uul hadda ogow, iyagaa ka mas'uulahu yiri maogtahay. kadib soo bixitaankii jabhadaha, musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah. bishii Janaayo 1991 dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. waxaa khubaro, siyaasiyiin iyo mujtamac kale oo Soomaaliyeedba ay ku tilmaameen xukuumadda Maxamed Siyaad Barre inay ahayd mid kalitalis ah, macaangeg ah, dhiig daadisay, isla markaana aysan waddanka u diyaarin deganaansho siyaasadeed. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale. asagoo shilin haysan 12 sano madaxweynaha dalka ka baxa. kuwa hadda jooga marka uu joogana malaayiin dollar intay dhacaan dhisanayo waxa uu sameynayana dadkan qabyaalada isugu dirdirayaan xayta wax ka sheegan oo rabo dambiga dalka ka galay khayaalada inay isku ka sameeyaan. marka waxa weey taariikhdu ayada khayr doonta tan la xaqiri doono wax ka imaan doono taariikh maxamed Barre waa ninka taariikhda soo nooleeyay oo la baaqashay يا كانوا أحمد جري بودسي كي دراويش بودسي كي دراحفور بودسي كي كده توك أسوال بودسي كي حاول تاكل بودسي جبتي كده توم بودسي وحلا على وحي جو النمردون أبدا على أودن في بلادوسي كي دولة أسوال على بلادوسي يعني هذا يحكون بالود البلاد هذا يعني يصير حساب بيحرة دولة يكون رئيسي شهادة كان هذا مكتوب كنت ممكن محلات تقطع مقولات تقطع بنتي أمر الدواء أمر الحري وضل كل شيء هالجوي هل شيء هالشيء خطي في المال. أنت معك التاريخ شلون ولا ينظم وحي هاي أي سوين مكة وعلى ضد على وقوع تعرف الدنيا اللي هو استعمار لا تقنعه يعني هو استعمار بس كان يقبل يقول عن شيء خطير عليه. haddaba su'aalaha isweydiinta leh ayaa ah 30 sano kadib markii xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre maxaa ugu wacan inay Soomaaliya degi weydo? sidoo kale 50 sano kadib markii xukunka uu qabtay militarigu wax miyaa laga saari karaa dhibaatooyinka weli ka jira Soomaaliya? Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya. waxa weeyaan kow ta ugu horeysa Haarunow waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af Ingiriiska lagu yiraahdo citizenship. Soomaalidu waxay haystaa wadaniga haddii Soomaalidu ka hadashaan wadani tahay tuugwana de xaq buu leeyahay wadani yahay laakiin uma dhaqmo sidii wadaniga ka dadka laynaya ka dumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedii. wadanimada marka laguma dhashay waa la bartaa marka labaad. marka waxa imanaya anigu waxaan xasuusanahay maalin anigoo 2 nin oo askar la socda xamar oo jawhar baan u soconaa waa markay soo dumisay waaye ayaa ragii askarta saraakiil sare ahaa ayaa abaaray reero Soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan. marka intan sidaa u dhageystay baan ku yiri oo kaalaya ma waxay ku soo dhuratay
in dad dan la kala sheegi waayo oo calaamad lagu dhufto. marka haddaad reer hebel tahay waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay. waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn. taas ayaan isleehay raadkay kaga tagtay Soomaali waa ta maanta joogta ee noqotay inaan la oran war yaa mabda wadaaga Soomaalinimo yaa wadaaga Islaamnimo yaa wadaaga laleeyahay reeraha loo kala fadhiisto reeruha soo doortaan qofka masilaya. marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simayaa. marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dawladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal. bishii Janaayo 1995 Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria, halkaasi oo masaafuris ugu noolaa tan iyo intii xilka laga tuuray. Professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queen's ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre. waxa aan weydiiyey sida ay taariikhdu u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. kulley anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas'uul ku ah. dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu samayn waxa sameeyay ciddi aad u magacaawday in ay maxay hayto wadanka ka arrimiso. dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego مثلا abaarta daba dheer oo aan ka hadlay oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacankaas. markii runta la sheega ma ogtahay oo aysan ahayn weliba dad ay ii sheegeen anigii u soo taagnaa oo meesha joogay xerada markaan tagay waxa maalintii dhiman jiray wallahi alcadiim dadkina waa joogan weli 50 qof ya maalin kasta dhiman jirtay. yani gurmadkii ummadda gacaanku u sameeyay waxay ahayd mid runtii cajiib dan kastaba laga lahaado. laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto. waxaan isleeyahay مثلا qorista Soomaaliga oo kale Haaruno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto. waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego waliba anigu haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii. marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa ka soo bixi doona ila saaxiib moogtahay macaan iyo qaraar runtii oo lianu wallahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kambaanyo idaacaddan xamar waxa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummadana la isku dumi karo oo loo soo keeni karo moogtahay. yani fursadii Maxamed Siyaad uu helay dawlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego. yani fursadii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo Soomaalidu waa tishtii jirtay dawlad gacan dheer moogtahay runtii dawladdaasa gacan dheereed. marka nasiib darrada ka dhacda waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay, awooddaasi seed u isticmaashay, awooddaasi ummadaanu maxaad ugu qabatay. weligii ma saadaaliyay dagaal diinada ka dhacaya wadanka ma dhahay weligii intaad u joogtay adiga? niyahow diinta ma aha laakiin wuxuu ka hadla waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aan Allahu naxariisto waa dhintay laakiin wuxuu yiri meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furmaysaa sida tusbax go'ay. laakiin asagu diinta ma hadlay wuxuu u arkayay qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogtay. waa gad hadalka dad badan baa maqlay miyuu yiri oo dhabhaan muu yiri hadalka? ma ana ugu yirka cidda kale ku yiri waa gooniday laakiin taa aan ugu yiri ana marxaati ka goor ma ahayd waa 80 iyo in fact waa November 82 iyo October waxay ahayd maaqan laakiin waa 82 maxay ku timid sheekadu? sheekada waxay ku timid wuxuu ka hadlayay waxa dhacday qolooyinkii SSDF waa kuwan eriyooyinkan iyagoo ka soo duulaya ulasantii aan ka hadlaynay waa kuwan cabud waaq iyo soo gelaya mararka qaarkood moogtahay waa kuwii gaalkacyo iyo lafteeda si xun dadku isugu dilayeen Soomaalida moogtahay oo yani qabiilkan ka hadlaya. marka waxay ahayd waqti duhur ah waa xusuustaa
nin waxa yimid niyahow janan ahaa moogtahay oo aan maxaa siyaad aysan isku hayb ahayn villaduu soo galay villadii niyahow markuu soo galay yuu baabuurka isagoo dhiganaya yaa dhalinyaro xabad ku furtay hadda waa villa soomaaliya gudaheeda uga wada marka madaxweynaha soo kacay dhalinyaradii uu si xun u canaantay infact ninkii uu la hadlay waa markuu ninka la hadlay kadib uu sheekada aniga ii gelaya uu qabiilkii ka hadlayo iyo dhibaatada qabiilku uu keeni karo moogta iyo cawaaqibta la socota oo aanan laga fikerayn sida dhalinyaradaas xabadda u furtoo kaleeto marka wuxuu yidhi wallahi sida tusbaxbu ay noqonayaan haddaan anigu meesha ka furto ku dhowaad 30 sano oo waddanka ay ka soo jireen dagaallo sokeeye deganaansho la'aan iyo dagaallo diineed waxaa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabkeeda